waxa la yiraahdaa xukuumadii kulmiye oo deegaanka waa la hakray wax laga ma qaban 24 tuulu sheego ka samaysan dhowr iyo 30 balli baa laga sameeyay waxa soo dhan dadaal la sameeyay buu ahaa laakiin waxa leeyahay ku noqosho male wixii la yiraahdaa waxa lamaanta loo fadhiyaa maxaa la qabanaya waan arkay durtiba hadii jeer dadku marka uu mucaarid ku raago waxa ku soo degdega hadii uu muxaafid noqdo inuu mucaaradadii uu han weynaado jeclaado rag deegaanka oo waan arkay wax soo qorqoriyo mucaaradada ka muuqatee waxaan oran lahaa waa madaxweynaha la shaqeeyo waxaan ku lahaa wixii deegaanka u baahnaa ay candho dhixil loo oran jirayna dawal looga fadhiyaa looga soo qaado taan waa oran lahaa $380,000 ee baxay waxaan eegayay oo ay ku qurux badnayd aniga aragtidayda outputkii ka soo baxay inta arday lacagtaasi ay anfacday ee ka soo baxay inay noo raaciyaan waan jeclaano waana sidii ku qurux badnayd waayo dadku markuu ogaado outputkii soo baxay ee uu ogaado lacagta uu qofku tabarucu bixiyo waxay wax tartay in yar xooli laga reebay oo la siiyay cunto oo la siiyay waxbarasho oo dadaalay oo ka soo baxay meeshii dadka halkan fadhiya waxay ku dhiiran lahaayeen inuu qof walba bixiyo oo sadaqada ka qayb qaato wanaagsan ee khayriga way noo dambeysiyeen waan filayaa taasi waa mid waxaan oran lahaa in Ilaahay ta'ala sidan waxaan isleeyahay mustaqbalka anigoo sheegi doona wixii la soo joojiyo nuxurku yahay laakiin waxaan isleeyahay oo aragtidayda iyo waayaragnimadayda sidan hab lagu sii wadi karayo maaha in maalo shir la qabto oo la yiraahdo dabada qof waliba qaaraan ha bixiyo intaasoo kun oo waxa jira dad oo dhalinyaro ganacsato shaqaysta oo reerka ama deegaanka intaasoo kun oo shaqaale dawladda jira oo shaqeeya oo deegaanka intaasoo qof oo qurba jooga baa jira haddaynu bishii qof waliba uu wax yar isqoro oo bixiyo inta la diiwaan geliyo way naga furan lahayd lacagtan la oranayo wax la bixiyo sakada kamida in la yiraahdo war xoolaha reer miyiga ilaa dadka reer miyiga ugu badan dadka caruurta loo hayo la tababarayo wax loo baraye xoolihiina sakada sakaynaysaan toban taabo ugu deeq ama hal loo qalo ama guud ha loo siiyo ama macallimiinta laga bixiyo anu waxaan isleeyahay strategy tan ka fiican baynu u baahanay inagoo tanna ka tagay oo waxaynu ku tarayna strategy joogtaysa $1 maanta loo haya hadii wax la bixin waayo ama waxaan ku filan waayaan nabadooda iyagu naftooda ugu go'aymayaan waxay u baahan gacan la siiyo waxayna la gudboon yaraan iyo badnaan sadaqadu ma kala laha waxaan oran lahaa qof kasta inta la soo kiciyo mooyee yaan xad loo sameeyay qof kasta oo wax ku deeqaya ha isqoro ha sheego aakhiru sawab ka helaya adduunyadana khayr buu ka helaya qodob kale waan ku darayaayo wuxuu sheegay maxamed warsinimo badan oo ka baxay oo shaqaysta haddaan inamada meesha wax lagu baray adduunka la gelinayo ilaahay hortii loo gelinayo aan la fahamsiinin inuu isaguna deeq bixiyo noqdo oo markuu meesha ka baxo oo isaguna wax ku taro la fahamsiinin maxaa lagaaga soo saaray wax lagu taray de wuxuu ka mid noqonayaa dadka badnaa Soomaaliland ku nool